الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله maxaa loogu talagalay maanta maalintan dhashay maxay risigu maxay ka dambeeyay taro maanta waxa weeyaan waa tournament loogu talagalay in lagu caawiyo masaajidka Al-Huda oo in muddo aan naga xidhnaa laakiin waxa la yiraahdo hadda insha Allah bisha January baa la bilaabay dhismihii waxa la siinayaa laba shirkadood mid ahaan sidii markaan uga qayb qaadano aan u sameeyno fundraising baan u sameeyno tournament insha Allah khayr inuu ku dhamaanaysa sheeynaya in Ilaahay lagu soo masaajidkii oo iswacan loo dhisay waa maanta ali aad iyo aad baan maasantay waxa risig loo yaari wuxuu yahay Al-Huda baa loo yaari mosque haye charity haye qof kastaba direct debit baa laga qorayaa 5 gini 20 insha Allah bidillah hadii leela boqol markaas soo socota soo faayar maanta waa arkaa ninka Allah ila kharasiye Jubari iyo Nuux wallahi way wadaan ma sha Allah والله شوف عبد الصوت السلام عليكم مقعي محمد نور الله وحاولا تيمك E8 وستاز إن شاء الله كومبتيشن waxaa ugu soo qayb galnay sababtana caawino masaajidka Al-Huda sabaqada ka caawino charity ka caawino insha Allah marka wax rabnaan at least after ugu dambeynaan gaarno competition-ka hadii kala final ka gaarno amaad wintaan taas ugu tamaa insha Allah sababtaanu waxa weeye charity weeye masaajid loo ururinayo oo sadaqa Allah oo masaajidka Al-Huda lacag loo ururinayo weeye sida awoodee team badan baan ahayn labaan iska dhignay waxaan ugu talagalay inaan charity ka qayb galno charity-ga masaajidka aan qayb ka qaadano anagu hadaan u leeyahay hadii kale waa charity anagu charity-ga iyo fan ahaan aanu ka qayb galno community-ga ayaa muhiimadu tusno ciyaarahan soo bandhigi karna baan anagu ka qayb galay ay muhiimadu tahay ninka thank you Muuse My name is Mohammed. My team is called Camden Town, and as it's in the name, we've travelled from Camden to participate in the tournament. And the reason why we've joined the tournament is it's a great opportunity to contribute to the masjid. I work in Tower Hamlets. Personally, I live in Oslo. So it's a great opportunity to contribute back to the masjid. I know the chairman and what they're trying to achieve. So we're here as an easy way to play football, which we enjoy, but also the money that we've paid, but also to contribute to the masjid. Our objective is to win the tournament. It hasn't started well so far, but I have faith in the team and we aim to reach the final. Come on, boys! Come on! team kida magaciisa iyo waxa ay area Kenya bari sheegta haye marka maxay tahay sababta maanta u ciyaarsan tournament-kan manka waxaan u ciyaaraynaa maanta inaan charity ahaan haye Al-Huda masjid عوارك كوحدة وتي خبر marka maxaad rajaynaysan rajaynayna baalkana qaadno Saturday waxay ليج رجع ياري ويطب استبني FC مرة كوكو وقاضينا مقاحدنا واجينا حجر الأسود مركا عوارة تيمك محمد هذا مريخ خلاص نصاب أنا صومال لاين بلنا family photo yeah Somali Lions we are top of the table Al-Huda لا تقول في دايما مدري أنا كان What are you guys aiming to achieve? What are you guys aiming to achieve at the end of the tournament? We're going to win the tournament, of course, man. Anything else? Anything you got to remember is not for charity. So you don't go too hard. You have to give people a chance, you know what I mean? It's so much for charity. Keep up the good work, guys. I'm standing there, yeah. I'm seeing guys coming over me like this. I thought I was their fault. Yellow, isn't it? Come on.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا